marka hore waxaan leeyahay lillahi wa inna ilaahi raaji'uun askarigii shaqada qaran ku dhintay gacanta ka gardaran dishay ayaan ilaahay uga bariyay naxariistii janno ehelkii iyo qaraabadii guud ahaanba Soomaaliland ilaahay samriye ma ka siiyo askarigaas wuxuu ilaalinayay kumbaniga biyagelinta galbeedka magaalada Boorama shaqo qaran buu fulinay runtii gacan ka gardarana way ahayd dawladuna ku daba jirtaa go'aanka saakaan qaadanayna waxa weeyaan in meel kasta oo uu galo cidii ku lug lahayd inaan lagaga hadhin meel kasta oo gasho qof kasta gasho iyo meel kasta oo gashaba in badan baa dadka la dhawray shacbiga la ilaaliyay la damcayn laga dhex shaandheeyo inta xun haddaanad shacbigu tilmaami karayn kuwa xun ee ku dhex jira xukuumaddu waxay go'aan qaatay inay markaa meesha waa laga dhex saaraya haddii la yiraahdo talaabana ka qaadayna haddii la yiraahdo waana cid ka soo horjeeda horumarka gobolka ka socda ee ay biyagelintaas oo soddon sano in ka badan loo qaylinay ay koow ka yihiin oo wadada bilaabaysa ogtiin in assessment la bilaabay waa cid horumarka ka soo horjeeda Soomaaliland gaar ahaan gobolka horumarka ka soo horjeeda waana shacbiga inta wanaaga jecelna waxaan leenahay gacan halaw gacan siiyo dawladda sida hawsha wax looga qaban lahaa aad iyo aadna waa maasantiin annagana waxa qorshaha iyagu yahay talaabo inaanu ka qaadno meesha doontoba nala gashay inaanan ka hadhin gacan birana ku soo qabanna hadii la yiraahdo askariga gacanta ka gardaranay dishay waxaan leenahay waa loo aari doonaa halkeediina waanu dhigi doonaa xukuumaduna talaabay qaadi doontaa hadii la yiraahdo aad iyo aadna waa maasantiin